ما ogtahay walaashayda muslimada ahay inuu Allah subhanahu wa ta'ala ku karaameeyay kuna doortay inaad noqoto hooyada koonka iyo bulshada ay ka soo baxaan ibn aadam. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu kugu waajib yeelay cibaado iyo dhowrsanaan, sidoo kale inaad xijaabato oo jirkaaga asurto. Waxaan arkayay habla muslimiin ah oo baraha bulshada ku sameynaya dhaqamo aan suubanayn, sharafkii iyo karaamadii uu Ilaahay siiyayna meel uga dhacay oo jirkooda soo qaawiyay, iyaga oo jirkooda muuqaal ka soo duubaya, soona dul saaraya heeso, iyaga oo la dhacsan oo la jidbaysan waxa ay heestaa sheegayso lana ooyaya. dumarkuna bini aadamka way ugu fidna badan yihiin, oo marka aan dib u eegno qisaska ambiyada meelo badan ayay kaga jiraan fidnooyin ay geysteen oo faafiyeen. waxaana kamid ah tusaalaha koowaad xilligii qoomkii Nabi Saalax alayhi salaam markii ay go'aansadeen inay hashi dilaan, waxay u direen hasha dilkeeda nin lagu magacaabi jiray Qidaar wuxuu ahaa nin isku darsaday shar iyo xoog badni, balse Qidaar uu ka yara cagajiiday. markaas ayay waxay u direen haweenay ku ficnayd gubaabada oo uu qabay mid kamid ah madaxyaweynta qoomka. markii ay u tagtay ayay waxay ku tiri, haddii aad hasha dilkeeda fuliso waxaan ku siinayaa gabdhahayga midii aad doorato. Qidaarna wuu ogolaaday inuu hawsha fuliyo, wuxuuna ballansaday 8 nin oo diyaarsaday 8 nin oo hawsha la qabata. halkaasna waxay ku dileen hashi Ilaahay. markaasna waxa soo dhamaaday qorshihii halaagii ay la kulmeen qoomkii Nabi Saalax alayhi salaam. tusaalaha labaad oo dumar ay garwadeen ka ahaayeen waxay ahayd xilligii qoomkii Nabi Luud markii malaa'igta Ilaahay uu soo diray inay soo halaagaan qoomka faaxishada sameeyay, ayay waxay ku soo hormareen gurigii Nabi Luud alayhi salaam iyaga oo la joogan Nabi Luud oo iska soo dhigay niman dhalinyaro ah oo wajiga qurxoon. ayaa waxa aragtay haween uu qabay oo aad u akhlaaq darnayd, isla markiiba intay carartay ayay waxay u soo sheegtay koox ahaa dulmilayaasha dadka dulmiya oo dadka safarada ah dulmiya, sidoo kalena u geysta faraxumayn. ayay waxay ku tiri, gurigii Nabi Luud waxa jooga rag aan weligay wajiyadooda quruxdooda oo kala aan arkin. falxun wadayaashii markiiba intay soo carareen ayay waxay yimaadeen gurigii Nabi Luud alayhi salaam, waxayna ku dhaheen soo kuma aan dhihin rag ma martiqaadi kartid. Nabi Luud alayhi salaam wuu cabsooday oo wuxuu u cabsooday dadka martida u jooga in lagu xadgudbo. markay wajigiisa cabsi ka muuqatay ayay malaa'igtii ku dhaheen, Nabi Luud anaga waxaan nahay malaa'ig ee cabsoon. kadibna malaa'igtii ayaa albaabkii furtay. falxun falayaashii banaanka taagnaa ayaa u soo kala cararay malaa'igta xaggeedii iyagoo u qaba rag, balse malaa'igta ayaa wajiga ku dhufatay oo wajiyadooda isku dhagay, indhihiina way beeleen. iyagoo darbiyada ku taagsanaya ayay carareen oo ku dhawaaqaya gurigii Nabi Luud waxaa jooga sixroolayaal. subaxii dambana halkaas ayaa lagu halaagay qoobkii Nabi Luud.